Hambalio salama soo dhawaada saaxiibayaal waa Mawlid Sam iyo muuqaal cusub maanta waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa sida hadda u jeedaan gadaasheeda iyo xagga dambe oo dhan waxa isqariyay ama lagu iibinayaa ama businessku isu bedelay 7 cisho ugu dambeeyay calamada sida koofiyadaha iyo diriiska la xiranayo kulay maalintan waa maalin ku weyn dhammaan shacab weynaha reer Soomaaliland meel wal oo adduunka daafiis ku nool yihiin maanta marka muuqaalkeenan waxa isu ka dambeysay inagoo xiisiya meed iyo meelo fog joogna laakiin muuqaalkan waxa weeyaan muuqaal maanta waqtigiisa jooga marka bal dadka iyo dareenkooda iyo shucuurtooda sideed ku saabsan ayaan muuqaalkeedu kula wadaagi doonaa marka saaxiibayaal aan wada soconno soo dhow shucuurtaada ka war وانت ولا اي اذن فرحسناي 18 مي maxaad taqaanaa adigu 18 meel ugu dhaca 18 مي والله 18 مي waxaan waaqaana maalin weyn ay marka ma taqaanaa la soo hadal qaado lama ama ay gaadho sanadkii 18 meel waa 18 meel soo dhow imisa waxyaabo dastada samee والله waxyaabo badan waxaan doonaa bishaas oo inta laga gaadho inaan dabaaldego aad weyn way halkan hal fariin adan kula dadka reer Soomaaliland u dib maxay ahaan lahayd si wanaagsan ugu dabaaldegaan maalinkeena quruxda badan leh hooyadii abaankay marka hore baraydiyo hambalyo salaaman hadiyad kaga dhigaya waad hoodo badantee hargeysay manabadba maasha allah happy 18 May waxaa lagu jiraa diyaar garowgii 18 Mayga saarkaysan magaaladu waa wada calan waxaa laga dhammaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland dal iyo dibadba happy 18 May waa sanadkii 3 intaaba waan soo dabaaldegay ilaa sanadkii 1900 macaani neeca u doonin nabadi macaani neeca u doonin iyo barwaaqada nimcalagu qabooba intaasi maano laga jabo nafaqada naxariista eebay waxa markii ugu horeysay magaalada Hargeysa 18 May isu diyaarinaya ku sugan saaxiibkay prefectiisu oo ay tahay markiisii ugu horeeyay Hargeysa islu horta sideedo saaxib dhul Soomaaliyeed waxa la jira Hargeysa ayaa saddex iyo ahba jigjigo hadda soo maray maya manihin reer Hargeysa baan ahay kada Hargeysa sax baan noqday sabar horta dhulkiisa saddexda Soomaalida waxa la jiray Soomaaliya degan tahay markii laga soo tago jigjigo hadda soo maray waa Gaarisa jigjiga iyo Hargeysa sala sugu diyaarinay 18 May soo aragtaa saaxib macaan wallahi horta saad horta wadana u tihiin waligeed dad saan wadina waa u markay way meherad walba waan tago guri walba baabuur walba calanka Soomaaliland ku jira waxaan leeyahay Soomaaliland hanolaato way maanta hadda waxaan hadiye ahaan ku siinay koofiyada hortiina ku xirtay ay halka fariinada asxaabta ugu dirsan maxay weeyeen halka fariinada asxaabta halkan ugu diran waxaan leeyahay asxaabteedii dhammaan reer Soomaaliland maanta maadaama fiidiyoga reer Soomaaliland sameeyeen waxaan leeyahay happy 18 May waxaan rajeynayaa in maaragtay si buuq ay ku jiraan in 18 May ay ku dhamaato insha Allah baan leeyahay aad baan u maasantahay my brother kiizo
nabad ku dabaaldega calankana inoo dhowra hambaliyo 18 May ciidankii la helay uubta lagu riday layl uma soo noqon ragba ku dhinto ku dhaawacmo dhuuxa iyo dhiigow hore allow cadowgaygu soo celin calanka babanaye muuqiisu dheer yahay tawxiid ku dhigan yahay xidigta madow ku caan baxay cadow kuma haleele allow dida ku celin halyeeyadii saname heryadii gumaysiga kala daadiye geeri doortaye xornimada dhasho ku dhintiyo ku nool guul sidaa tihiin hantidii la boobiyo ubixii la laayiyo oryihii la dooxiyo raggii la xasuuqi jiray waxaa lagu iloobay calanka tawxiid ku qoran yahay tobanka May aad baan u soo dhaweynaynaa waa maalin Soomaaliland ku weyn waa maalin shacabka ku weyn waa maalin qarannimada ku weyn waxaan leenahay la soo dhaweeyo dhalinyaro odayaal shacab cid walba in soo dhaweysaan doonaa maalinta ay dhimay waa maalin aad weyn waa maalin sabtiya in la isku soo baxo gobolada Soomaaliland oo dhan in calanka aad loo muujiyo ayaa la doonayaa maalinta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله عيدا كقرنكا iyo jamhuuriyadda Soomaaliland bay timay inoo sabtida 18 May iyo tani maka labadaba ka qayb gala tana waxaan rajaynayaa in tii hore ka sii qurux badnaato insha Allah waxaan leenahay calankeena ay lulleen